odayaashii waxgaradka ku dhaqan magaalada Kismaayo ayaa waxay si diiran u soo dhaweeyeen socdaalka uu ku tagayo madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siinaayo degmooyinkii deegaanada Somaliland waxayna sheegeen inay ku faraxsan yihiin maadaama madaxweyne walba looga baahan yahay in uu booqdo shacabkiisa qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka ku dhaqan magaalada Kismaayo oo si diiran u soo dhaweynayo madaxweynaha Somaliland hadaladoodii waxa ka mid ahaa sida tan waxaan ليلى مقعي أحمد محمد محمود شكارنا waxaan joogaa gobolka Jubbada Hoose waxaan ka mid ahay odayaasha jubbooyinka ayaa ka mid ahay haddii su'aashaan u weydiisay kormeerka oo sameeyay madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siinaayo waxaan u arkaa madaxweyne dadkii soo booqday baan u arkaa dhulkaan wuxuu ahaa juqraafikali ka tirsan Somaliland aad u fiican ka sii wadaan kumaray gobolada ku marayo madaxweynuhu xaq uu leeyahay inuu dadkiisa meel kasta ay joogaan oo ay uu tago oo ay arka dadkii xaq uu leeyahay taas waa qodob marka madaxda waxaan leeyahay nabadda hala sii wado horumarka hala sii wado wanaagga hala sii wado kuwaas u imaanayaan waa la doogi iyo la dhacron anoo madaxa xiriirka kubadda cagta garoomada gobolka Jubbada Hoose socdaalka madaxweynaha Somaliland uu ku tagay Laasqoray waxaan u arkaa arin uu asagu madax ka yahay marka waxa wax la yaab la dadka sheeganaya gobol u lahayn waana ku faraxsanahay tagitaanka uu tagay Somaliland uu madaxweynaha uu tagay gobolada uu asagu madax ka yahay aad baan ugu faraxsanahay inay isdejiyaan oo ay la shaqeeyaan madaxweynaha si kastaba ha ahaatee socdaalkan uu ku tagayo madaxweynaha Somaliland degmooyinka iyo deegaanada Somaliland ayaa waxa la filayaa inuu ku soo gabagoobi doono jawi heer sare ah Cabdiqadar Imaan Dhaqane TV-ga caalamiga ee Home Cable magaalada Kismaayo.